السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدب مركي النبي إلهي اللي هو وحيودي كود حديث اللي يري آخر مقع بها خالقه واتو عبصدي يقولي ستغي كدب نواتي خديجة بستاكو دوبتي سيدينو مقالكي هرق سو شاقناي qaybtana waxaynu kaga warrami doonaa bilowgii ugu horreeyay ee waxyiga nabiga lagu soo dejiyay iyo dadkii ugu horreeyay ee nabiga rumeeyay iyo dhibaatooyinkii uu nabigu kala kulmay Quraysh iyo reer Daa'if kadib markii ay Khadiija nabiga bustaa ku duubtay waatay ugu yeedhin in ay habar wadaag ahaayeen ninkaasi oo lagu magacaabi jiray Warqah ibn Nawfal waatuu u sheegay Khadiija in Maxamed uu nabi Ilaahay yahay intaas kadib waxa nabiga ku soo degtay suuratu Mudassir waxaana nabiga sallallahu alayhi wasallam markaa lagu yiri nabiga istuudubayo ka waxaana lagu amray inuu ummadda islaamnimada gaarsiiyo markaas buu nabigu sallallahu alayhi wasallam fadhiga ka kacay waxaanu bilaabay inuu ummadda ugu yeedho diinta saxda ah ee islaamka waxaana markii ugu horeysay nabiga rumeeyay saaxiibkiis Abu Bakar dhanka haweenkana waxa ugu horeeyay oo rumeeyay xaaskiisa Khadiija wiilasha dhalinyarada ahna waxa ugu horeeyay adeerkii Ali bin Abi Talib dadka adoomada ahna waxa ugu horeeyay Seen bin Haris kadibna waxa korodhay tirada dadka islaamka ah ee nabiga rumeeyay waxaana nabiga iyo asxaabadiisii ugu horeeyay kamid ahaa Ismaan bin Affan Sa'ad bin Abi Waqqas Abdurrahman bin Auf Ismaan bin Mad'um Abu Salama iyo Al-Aqram rasuulka iyo asxaabtiisuna waxay ku kulmi jireen guriga Al-Aqram waxayna wada xiriiri jireen si sir ah muddo 3 sanadood ahna diinta waxay u faafinayeen si qarsoodi ah ilaa markii dambe ay ku wareegeen al-Jahr si ay diinta islaamka u faafiyaan una badbaadaan way sii socotay dacwadii rasuulka ee al-Jahriya Qurayshna dhibaatooyin badan ay u geysatay nabiga iyo saxaabadiisa waxayna ku tilmaami jireen waxyaalo aad u xun waxayna dhihi jireen waa sixirlow waa kaahin iyo waa majnuun nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ay wadada ku arkaanna waxay ku soo tuuri jireen dhagxaan iyo qashin aad u xun markuu tukanayana ay ka riwaayadsan jireen qofkii nabiga u heeliyana waa ay dili jireen kadibna markay saxaabadii iyo nabigiiba aad u dhibtoodeen ayaa nabigu wuxuu ku taliyay inay u hijroodaan ardul Xabash nabiguna wuxuu yiri waxa dhulkaas jooga boqor caadil ah oo lagu magacaabo Najaashi kadibna waxa jiray saxaabadii rasuulka ilaa 100 qof wuuna soo dhaweeyay boqor Najaashi wuuna sharfay rasuulkuna wuxuu gaaray Daa'if si uu dacwada u gaarsiiyo reer Daa'if wayna beeniyeen oo shiideen muuqaalkeenu intaas ayuu ku eegyahay daawada maanta ee Lexar lana soco qaybaha dambe ee taariikhda suubanaheena sina sheer kale muuqaalka hadii uu ku qanciyay kuna soo biir page-keena Miraale mahadsanid